intii madaxweyne bixi talada dalka qabtay oo ah runtii mid aad u cakiran dhiig badan ku daatay aanu ka muuqan horumar aan ka muuqan waxqabad aad moodo siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibadda inay aad hoos ugu dhacday. waxaan ka soo bilaabi doonaa dhiigga daadanaya ee ilaa habeen hore ugu dambeysay ceelafweyn ka dhacay waxuu ka soo bilaabmay maalintii madaxweyne biixi doorashadiisa lagu dhawaaqay ilaa maanta u socda. waxa dhacday rabshadaha dhacay maalintaasi. rabshadii dhacay dad baa ku dhintay muwaadiniina oo ciidanku xabad la dhaceen. kadib waxa dhacay dagaalkii uu ku qaaday Tukaraq. waxa dhacday oo dad badan ku dhinteen. waxa dhacday dagaalkii ceelafweyn ka soo cusboonaaday. waxa ku xigay dagaalkii deegaanka Dumay ka dhacay ee Somaliland oo dad badan ku leedeen isla markaana ay xallin kari weydo xukuumaddiisa iyo dawladda deegaanka Itoobiya lagu soo xalliyay. waxa kale oo mar labaad soo noqday oo aad loogu hoobtay dagaalka ceelafweyn. waxa dalka ka samaysmay jabhad oo dibadda uga baxday oo ilaa maanta hadalkayga taagan yahay. intii madaxweyne biixi talada dalka hayay waxa xusid mudan in doorashadii Somaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanku markii labaad dib u dhacayso oo muddo kordhintii labaad diyaar tahay. waxa xusid mudan in xariga saxaafaddu tiro beelay, in xariga samafalayaashu tiro beelay. waxa inagu cusub waliba oo aan hore u jiri jirin xukuumadii hore xildhibaano la xidhay. xildhibaanadii golaha wakiilada la xidhay, kuwii golayaasha deegaanka la xidhay ee xasaanada lahaa ummaddu soo dooratay. waxa xusid mudan xariga muwaadiniinta ra'yigooda cabira. waa xaq dastuurku siiyay qofka muwaadinka inuu aragtidiisa cabiro, uu ka hadlo xaalad kastoo dalka ka jirta, uu si nabdoon u cabiro. waxaan isleeyahay qaranku kuma sii jiri karo nidaamka noocan ah. mandate wax la yiraahdo ama doorashooyinku xilli bay leeyihiin. waxa inagu ayaan darra ah in golaha guurta Jamhuuriyadda Somaliland maanta 22 sanadood kursiga iska fadhiyaan. 1997 kii baa la doortay golaha maanta inoo fadhiya. golaha wakiilada ee maanta fadhiyana 2005 baa la doortay. mid 22 sanadood buu fadhiyaa, midna 15 sanadood buu fadhiyaa. golayaasha deegaankuna iyaguna waa muddo dhaaf 7 sanadood iyo 8 bay fadhiyaan. ma jirto sabab aynu oran karno intii muddo kordhin Somaliland ka dhacaysay sababtii ku habboonayd bay ahayd marka hal mid laga reebo. doorashadaas oo ahayd doorashadii madaxweynaha dib u dhacday ee dalka abaartu ka dhacday ee dad iyo xoolaba lagu leeday. taasunba asbaab doorasho dib ugu dhacda lahayd. dhawaan baan insha Allah sanadka 2020ka horraantiisaan doonaa annagu inaanu ku dhawaaqno urur siyaasadeed la yiraahdo Somaliland People's Party oo hadhow toole insha Allah isku bedeli doono xisbiga dadweynaha Somaliland ama SPP Somaliland People's Party. waxaan ugu talagalay inuu ka duwanaado nidaamkan axsaabta maanta u dhisan yihiin ama hagbadaha ama jeegaamaha ama giraamaha wixii la doonaha loola baxo. nidaamkan qabyaaliga ee qaran ahaan inagu mushkiladda inaynu dunana ay u dhowdahay haddaysan ku sii socono.